haddii aad rabto inuu miisaanka kaa dhaco weliba 9 cisho gudaheeda iyo aamin talada maanta aan ku siinayo haddii aad qaadato farqi weyn baa jirkaaga ku arkaysaa bisha ugu horeysa. qodobka koowaad isku day cashadaada waqtigeeda inuu soo hormaro. haddii aad awoodi karto maqribka ka hor inaad cashayso maqribka ka hor cashay taa waxay kuu fududaynaysaa 12 saacadood oo habeenkii oo dhan inay calooshaada marnaato. isku day cunto walba aad cunaysid in laga helo markay ugu yartahay 30 ilaa 40 xataa haddaa awoodto 50 gram oo protein ay gaarsiiyey. Proteinku waxaad ogaataa murqo ku ilaalinaa dharagaad ka helaysaa sidoo kale tana metabolismkaagu u fiican yahay jirkaagana way u fududaanaysaa inuu baruur badan gubo. 3 mar walba aad protein isticmaalaysid dhinaciisa khudaarha laga helo. fiiri khudaarta waxyaabaha ay ku fiican tahay waxaa ka mid ah iyona way ku dharjinaysaa sidoo kale tana insulinkaaga low way ka dhigaysaa. qodobka afraadna haddii aadan waxba samayn karin 10 ilaa 15 kun steps maalinkii ha laga helo. ma aaminsanidin socodka waa waxa ugu fiican ee keeni kara jirkaaga si toos inuu baruurta u gubo. recovery uu leeyahay socodka sida calaamooyinka kale ee lagu dhibaatoodo qofka maalinka kale uu hurdada ka soo kici waayo kuma jiro. 10 ilaa 15000 haddii ugu yartahay 8000 oo talaabo maalintii buuxi. qodobka ugu dambeeyana hurdadaada 7 ilaa 8 saacadood ina habeenkii hurdo qasab waay si testosteronekaaga uu kor u kaco insulinkaaga uu low u noqdo sidoo kale tana fat loss-ka uu u noqdo mid dhexdhexaad ah. طبعا haddii aad videoga ka heshay waxaan ka codsanaa inaad channelka ku soo biirto si macluumaad kuwan ka muhiimsan aan kula qabsado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.